وحيسله ولكن حسين عبد الحسن أمضى وضع تقنان حسين قروينه وصول أول channel كيجا هدي مركي كوجوريسي اتصاب وقتاي تاي channel كيجا سبسكرايب كنو تابو وهدي أضع سكفلا سويا فيديو جنا سيشير جرا لايك تناكو قبتها ريجا جنا كومنت كيجو صقر إنت عمر كان كي معطو فيديو أيا كوري عن كقال لي موضوع قفك سيتيسن يوروب كنول دالك أمريكان كا شرعيقو هايستي سيتيسن كا مكودي كرا دالك أمريكان كا فيديو جاس أيدك قاركود كومنتي سؤاليقو صقرين عاوانا channel هلي يجانا وانو شيغي waxaan ku yiri waqtigan channel helo ayaan video ka soo sameyn doona caawana channel helay inaan kaga soo jawaabo hadda su'aalihiini u guda galaya laakiin dadka qaarkood waxaan leeyahay markaad page-ga soo booqataan isla video-ga ugu horeeya aragtaan su'aal ayga soo weydiin ee waxaad rabto in aan page-ga ay ku jirta laga yaabaa gudaha hore u sii gal intaasaan sheegaya dadka qaarkood ayaa waxay ku soo weydiiyeen su'aalo aad hore uga soo jawaabtay ee qaarkood dib kugu soo celinayaan waxaan jecelahay waxaan hore u sheegay inaan mar labaad ku soo celin haddana waxay noqonaysaa jawaabtii ugu dambeysay een amaray ama dad qof bilaadan soo weydiiyo aniga jawaabo dadka qaarkood su'aasha ay soo weydiiyeen waxa kamid ahaa wiilkan magaciisa inaan sheego ma rabo buugan aan ku qortay wuxuu soo yiri hadaan baasaboor Soomaaliya haysto oo sifa sharciye dalka Mareykanka ma ku soo gali karaa brother sifa sharciye waad ku soo gali kartaa baasaboorka Soomaaliga waa wadan caadi oo adduunka dhan laga yaqaano laakiin markaynu ay nahay Soomaali wala ogsoon yahay adduunka meeshan kaga jirno Soomaaliduna dalka Mareykanka sababta u soo galaan ama waxa ku soo galaan wala isku yahay qaxooti waa lagu soo galaa aniga kula hadlaya qaxootinimo ku soo galay haddii Soomaaliya joogto haweyso ma kooran lahaa inaad baasaboorka Soomaaliga adigoo shacaba inaad ku timaado haddii aad dawladda ku jirto waa sifo gooniye weeyaan laakiin haddii aad shacab tahay oo baasaboorka aad haysato way kugu adkaanaysaa inaad soo gasho taasi waa gooni weeyaan haddii aad qaxootinimo aad codsanayso oo meelaha qaxootiga uu ka jiro ee dalka Mareykanka dadka ay la iska diiwaan galiyo dad aadayso taasi waa gooni weeyaan taasana laakiin kooran lahaa inaad samayso haddii aad Afrika joogto oo Mareykanku haweyn tahay inaad soo gasho taasi waa qodobka labaad wuxuu soo yiri Soomaaliyan jooga jasiiradda Malta seen ku aadi kara dadka majority ay su'aalaha igu soo wada qoreen qaarkood waxa u badnayd Afrikaan jooga seen Malta ku iman kara ku oran maayo soo tahriib oo saxari soo gal Malta saasaad ku soo gali kartaa laakiin wax ka dhawaan ku sheegaya haddii baasaboorka Soomaaliga aad haysato oo qof dalka Italiya joogo asumad buu ku siin karaa asumadaas ku iman kartaa kadibna waad ka baxsan kartaa oo waxaad raaci kartaa markab oo markabkaas lagu galaa Malta diyaarad oo ka raaci kartaa laakiin qofku hadii uu inuu ka taga meesha uu rabo oo asumadii waxa la siiyay wax markab bay raacaan Soomaalidu saasana Malta ay ku galaan jawaabtaas inaad si fiican u qabtaan ma jecelahay dadkii ugu badnaa ee soo weydiiyay Xuseen Garweynow seen ku aadi karnaa jasiiradda Malta su'aashaas aad u badnayd waxaan ku oran lahaa waxaad samaysaa haddii aad Afrika joogto oo baasaboor Soomaali aad haysato waxaad ku iman kartaa jasiiradda Malta oo kaliya ku furan adoona soo tahriibin Talyaaniga qof jooga ama qof u raagay oo shaqaysta ayaa casuumad ku fidinaya saasa Talyaaniga ku soo galaysaa fiisu ku siinaya marka Talyaaniga saa ku timaado waad ka soo baxsanaysaa marka baad soo raacaysaa kadibna Malta saa ku soo galaysaa wadaas easy